واتهي وقربت يقومنها النية نكي سعيد عبد الله الدنيها ينكي لورنشري مدوبي مدحوينه وقته كان ماضي مدحوينه وقته كان ماضي فرماجة الله كل مين عنه فرماجة أنه نشر جدولين مية فرماجة ما نديد ما هيستو وقتي وكذا ماضي حاجة كذا عضي الحاصل وحي صوروا لي فرماجة غروحه فرماجة غروحه وكل فريسان هنا بس صوروا هذا قلبت دول استاجوا قمنا هيجا وقوة جهان شركة مقدسو واحد وذو قيدين أحمد محمد إسلام أحمد نحر يسعد عبد الله الدني أو إن بهايرات اللي قصوا كريوايي والفرمات الشركة هاشر قدومي نج مدحوين وقت قوة كذا ماضي هيه وإن قلنا قلنا شركة ديار كورة هي موها سامرية السياسة هيه وإن عبد حاش قلنا قلنا هيه وإن قدك السومال هالكاس عبد حاش لقوله شيء هيه وإن عن فرماتشو ورقة قراه إنه يهي ديال كورو يهي موها وقتيس كذا ماضي إنه صدقيتها هاي إنه سأول هاي وده فرماتشو أو بريدة نوكا وقولوا فانا إياه باوحو قالي بارلمانكي قدوا مرسل يرجع صلاح الله والمرسل يواجه أكثر حالات صيتاي ولا أكثر بارلمانك إلا فدرال كو إلا شان يتوانك يقفوا لغري أو قصوى ضياشة إسبولر كاماه أنت كان إلا ونوادي نور أنا سأقول وين وحنا إسلها ويران هاف بهاف ويا إسلها يا معاذ يا محاف إلين أفرتان قاغلة markii la yiraahdo hal hadlo kuraasta ka kacay waxaan leeyahay war qofka samakarafo baa hor yaala artiisu dhiiban kara maxaa kalifay inuu qofku istaago qayliyo markii wax lagu sheego wax garataabi markii wax lagu sheego baa wax garata ma Soomaaliyeed baahay ileen habaar qabo qofka habaarka qaba haduu si kor sooreyn oo og yahay inuu yahay bad aleel bad lagu rido yahay oo wax meesha ka badan yihiin ilaa qayladani wuxuu ku qarinayaa tirayanaantiis 15 xildhibaan bay horta ahaayeen wixii saas ka dhaqayn jiray filimbiyaasha wadan jiray waa warayda ku hayn jiray ninka yahay wuxuu ahaa 15kii waa kuwa saar loo siibay sidii adiyaal lagu rooyay sidii tintii loo siibay tin caana waa caanatin ku dhacday sidoo kale oo saar waxaan leenahay waxa ka qaylisiinay ileen kalsooni baan jirin فود هلا قال لي هلا عضي لك يا اصي محو عضي ووغ يا لو عد بدن yahay marka muxuu sameeyay waa ma shaqad cimro aado nimankii isboorka waa ko warqad lagu xarnay darbiga lagu dhajiyay ma salaadaha hogaaminayay oo darbiga lagu dhajiyay ma soo gali karaan haday soo aadaan waxa dhici doonta yuhud maatiin baa kaga furo yuhud maatiin shaqada ma salaad waxa yaa warku ugu daalin xildhibaanadii waxa la yidhi markaa shir waa diideen Saciid Cabdullaahi Dani iyo ninka la yiraahdo muxuu ahaa Madoobe shirkii September 17 September lagu balaayay meesha la yiraahdo Muqdisho inay fuliyaan waa diideen waxa salaysan hadii aan ku roon yahay muddo kordhin waddanka u sameeya doorasho waan fooda hal lagu gudbo hadii aan ku rooyo xaaladdu halis bedesho xildhibaanadu awal baqxaan qaxa oo laftigoodu yaabanaa 15 kan hadii aan ku rooyahay qaraabta mooye qayliye mooye intii kala yaabanaayeen oo qaati billaahi taagnaa oo meelay waxa islahaayeen nin kasta agreement ma u haysto biilka meel ku haysmaystay wuxuu yiri oo ugu darayna farmaajo wax dhaawama hayne farmaajo wax dhaawama hayne aan ugu darno loo sano waa tii shalay waa tii loo bannaansanaa maanta in hoolkii baarlamaanka la galo xalay bay afka qaylo ku shubata afka heshiiskii waa galayaa shirkii waa galaynaa waa Saciid iyo ninka la Sheekh Madoobe shirkii waa galaynaa wax kasta waa saxiixaynaa ekastaashi hala qabto ekastaashi hala joojiyo farmaajo ku dadka jooji waa yahay Brisira biri waxay ballamiyay anaga shirayna anaga maamul goboleedyada iyo waxa la sheegnaa beesha caalamka birida hoos socotana madaxweyne farmaajo oo shirka guddoonka shirka asaguna waa ninkii lahaayeen 20 bari Muqdisho ay joogeen ninkii lahaayeen shir noola qayb gelayo shir noola guddoominayo waqtiisa ka dhamaaday ku hayeen ninkii baa biri shirka guddoominaya saa inta u fariisto
ودها السلام عليكم شركة أنا فري أنا الحري waxaa shirka ka qayb galayn adii la ku rooyahay xasan sheekh maxamuudi sheekh shariif iyo musharax iyo saamilay siyaasadeed iyo ka yaabi waxaan ka qayb galayn ninka adii la ku rooyay cabdi xaashiya qaxootiga baan ka qayb galayn adii la ku rooyay muusafar dhigtay baan ka qayb galayn wax la yiraahdo waa maamul goboleedada iyo madaxweynaha federaalka shiray markay shiraan ka bacdi wax la kala saxiixo waa ifan haday dhacdo saxiixu dhaxo kadib xalfada la qaban doono ee lagu soo bandhigi doono wixii macna la saxiixay iyo tubti doorashada loo jeesaday xalfadaas bay nimanka saamilada lagu xasimi doonaa oo aragti comment ka dhiibasho ay ku lahaan doonaa halka Saciid Cabdullaahi Dani iyo Madoobe ay rabeen inay sidii maamul goboleedadii oo kale xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuuri halka loo soo fariisiyo oo ay dhahaan sida hal sameeyo sidii niman dal iyo dad matale meesha xamar lagu kala adkaa war xamar lagu kala adkaa been alla caaye warnika ragaana lama xaqdiyo war ragii mucaaradka la oran jiray saynta dhulka loogu xiray shaarbaha dhulka loogu xiray wallahi ilkaha lagu socodsi ayahooday waseen meel alla meesha istaagaan ba farmaajo ninkaasi nimankaas wuxuu u bahdilay si aan caadi inaba caadi ahayn wuxuu tusay inay far dheeraada yihiin jiha iyo jid midna aysan rabin war doorasho aan aadno iyo kalsooni daraa jidha oo kulligood waxay ku kalsoon yihiin kulligood nin naftiisa ku kalsoon oo aaminsan inuu farmaajo la tartami karaahay ma jiro nin kasta wuxuu taagan yahay haddaa sidaan farmaajo ah aad tartan gashid u kaa guulaysanaya nin kasta wuxuu taagan yahay qaylada ku badi dhaawac siyaasadeed u geyso farmaajo markuu ha dhiig baxo afarta goor ha loo qayliyo beesha caalamka ku dhufato adinku xagga kaga dhufta haddii aan ku dowladahaas baalka mucaaradka ku dhuftaan markuu dhiig baxo baan la tartami karnaa laakiin de waa waa nin smartiye wixiiba inta la rogay baarlamaankiina halkan yiri soo fariista oo war igu tuuro 2 sano nimankan doorasho ma rabaan baarlamaanka ayaga la ordiyay 2 sano farmaajo 2 sano ku siiyay la ordiyay maxay rabaan ayaga rabeen ay sii joogaan day maxay rabaan ayaga rabeen ay sii fadhiyaan meesha oo sii biishaaday magaasa isku doon baa la saaray nimanka siyaasadda uu ka dheereeyay waa taa baarlamaankii asagay wataan shacabkii asagay wataan haddii alla ku ummadii markii farmaajo iyo rasuul radiyallahu anhu ay soo raacinayaan war taageerna waa haystaa dhaqaale waa haystaa haddii alla ku tii adii waa isku dhashay war ninka ragga la xaqdiyay nimanka mucaaradka ama mashruuxiin ahaada ama laba maamul goboleed ahaada daaroodke saynta dhulka ugu xira midna ma aaminsana Saciid Cabdullaahi Dani waa musharax ma aaminsana hadduu tartan galo inuu ka guulaysto farmaajo ka guulaysanayo isleey marka dhaqaale badan yahay isleeyahay waa kaas aan abs leeyahay waa kaa galgal badan ku leeyahay xildhibaanadii iyo wixii soo baxana saami weyn ku yeelanayaa abs leey taasa ka soo dar ku beerays xasan sidoo kale cabdiraxmaan sidoo kale sheekh shariif sidoo kale waxa kale iska wadaa warko taasa keenaysa kalsooni darrada taasa keenaysa qaylada taasa keenaysa waa waray marka lama oran karo waxa loo oran karo ma dhawaan waaga baxshay miisiga siyaasadda ninkaasi nimanka waa ka adkaaday Soomaaliya wuxuu noqon doonaa sida ii muuqata wali ma arag ma maqal madaxweyne Soomaaliya oo inta waqti uu ka dhamaaday soo laabtay laakiin sida aragtida ka muuqata hadda waa aragtida sida ka muuqata ninka farmaajo la yiraahdo inta soo laabanay uu leeyahay wuxuu noqon doonaa madaxweynihii u horeeyay ee Soomaaliya ee inta la doortay afartiisi laqay doorasho kale ku soo laabtay waa sida indhiis ka muuqata markaad fiirisid kalsooni darrada mucaarad ka muuqata markaad fiirisid calaacalka u shidan markaad fiirisid xagga dhaqaalaha markaad fiirisid dowladda kala taagan Turkiga qadar oo baxasha saa ay ku xaaday way ku xaaday tii lacag ah baaladu taagan wax ku haysan rasuul yara tahay umada hogaami ku haysan markay aysid
kalsooni darada ka muuqata nimankii musharaxiinta ahaa markii ay hoog iyo ba waxaa kuu muuqanaysa ninkaasi inuu indhal leeyahay indhow usoo noqon yahay mali anigu walaafaysta maahi maahi haddii alla ku rooyahay maahi sixroon maahi waxbaa soo laabanaya maahi laakiin waxbaa ay muuqmuuqda indhaha saadaasha baa ay muuqata sababtoo hal musharax cusub soo ma hayno hal musharax oo kalsooni isku qaba ma hayno waxbaa ay muuqda waxa ay muuqda farmaajo oo mar labaad la doortay mar labaad oo hal mar inta la wada naxay ilaa maalinta farmaajo la mar labaad baa la doortay waxaan ka baqayaa cid kale u baqay mayo Axmed Madoobe wadnuhu inuu maalinta fiirsadaadu maalinta farmaajo mar la doortay axmed ma noola waa ku day waa dhinta caado dhinta nafta daynaysan xadin darteed ana hubata sababtoo ah marxaladda maanta ku sugan ujeeda marxaladda ku sugan yahay baa ujeeda waa shakhsiga maanta farmaajo ilaa habeen kasta markuu laba ragcado tagado ilaahu malakamoodkii kusoo deji dhaha nafta ka qaad dhaha sababtoo ah si kale uma noolaan karo asaga noloshiisa ku xiran inuu kala dhinto asaga noloshiisa iska dhiciyey farmaajo inuu dhinto wuxuu isleeyahay noloshaada ku xiran sababtoo ciddu halkaasuu balaayo ku sitaa halkaasaa nin la yihahdo Uhuru Kenyatta u saaray wax kasta waxbaa uga darnaaday nimankii xagga iyo xaggaba mid doona dhacday xaggana daran farmaajo 2 sano oo ku darsiya dara khusiistay oo iyo doorasho wan maan foodaan u gudbay waa kiyo kaba inta dheer gashtay cid qabanaysa ma jiro kaba hawdadu xirta farmaajo doorashadii September-ka oo ay diidanayeen kalsooni darada ku jidayna ay u saxiixaan ayana waa ka daro dibi dhal meel nimanka u roon maanta ma jiro laba dara mid dooray taagan yihiin laba daran mid dooro waa Axmed iyo ninka loo jiray baalki laba sano restoration iyo haddii aan ku rooyahay iyo doorashadii September ayagu saxiixeen mar la saxiixay marka hadda waxay ogolaadeen biduuni shuruud inay kaga qayb galaan shirka uu gudoominayo madaxweyne farmaajo saxiixana wax ku yeeshaan ay saxiixaan doorashada haddii laakiin farmaajo marka day inuu smart yaan ku sheegaya wuxuu sameeyay xalay waa kii baajiyay shirkii baarlamaanka mursal wuxuu yiri koray ugu hay nimanku way ka baqayaan shirkaas ka baqayaan kalfadhiga koray ugu hay markay wax saxiixi waayaan dawladdu istaag channelka laba sano ku dhufo kabacdina ordo guryihiina aada 2 sano kabacdi isugu ay keena 2 sano kabacdi isugu ay keena markaasna waa 2 sano kabacdi waa farmaajo sii dhiigeystay waa farmaajo wadankii qabsaday waa kiyo ciidamada ka waaweyn keensaday waa kiyo dabaabaad iyo una qabataynta hubka laga qaaday waa kiyo taangiyaal iyo beebayaal helay maxay u sheegayaan markaa waa kiyo hadda 2 sano kabacdi markii yaadana waa kiyo bu'aal qabsaday waa kiyo Kismaayo qabsaday waa kiyo Axmed xabsiga ugu jiro Uhuru Kenyatta ka saaray meesha ya Jubbaland waa kiyo Jubbada xoreystay Jubbaland xoreeyay waa kiyo ay u shidan tahay waa kiyo ay isugu jidho waa kiyo markay doorasho imaado waa odaygi adeerkay ahaayo Saciidani aha oo kaligiisa oo indhaha ka siiyay oo isle raadiga ma lagu qabtaa oo markaas caadi isku dhiibay markuu magaalada soo galay farmaajo quruxo hees diyaado daaranay hastaysaad mardi xanuun meesha ka baxo oo Kismaayo la qabsado oo adiga ku baashi la qabto meesha yaa muxuu ahaa bu'aal la qabto oo gacanta lagu dhigo soo haray markaa oo soo baxay dadkii maaniga ka haray odayga loo jeey Saciid Qurux dadkii maaniga ka haray qaadaya soo haray asagana ma inuu meeshiisa oo meesha difaac xirto yeen wadii aan ku rooyahay kaanka heesa u qaado lana ma tagaysa hadda goor baan kale oo jiray hadraawi hadraawi ba tixtiriyo hadraawi iyo yamyam oo asna mucaarad aha mareexaan aha oo wada joogo hadraawi wuxuu tiriyay tixtiriyo uu leeyahay hargabta iyo muxuu ahaa hooyada hayayda iyo hargeysa xoreynaya iyo hoog iyo baawur baan saaraya yamyam marka u tiriyo xogaa dhiigu qaado wuxuu ku yiri hargabta Toyota habaynta adoo harar jooga hawaasha xoreynta waxa ka hagaagsan
adoo halaka joogo kacaanka u haysayo kacaanka odaga marka odaga Saciid Cabdullaahi Deni inuu marka kacaanka u haystay Sabaadi Axmed Dhuxul istakiin laga dhigto istakiin hadii laga dhigto waxay noqonaysaa inuu kacaanka u haysto halkaas iskuna dhiibi doonaa si wanaagsan umadiisa oo jaan qaadi doonaa oo waaqiciga dhabta jira hadduusan samayn ama waa la ignore gareynayaa ama waa la qabanaya ama waa la ignore gareynayaayo sida Muuse Bixiyo kale ba Cabdi Xaashiyo kale matalay iyo ninka yaad Mahdi Guuleed oo kale rag yimaada halka oo faraha dhigta baa matali doona taasa waxay kalifaysaa marka in Saciid Cabdullaahi Deni uu marxuum yahay mar haddii Axmedoobe lagu fadhicisho hadalkiisuna qormi mayo wadar iyo waaxid yaa waalmen oo saayo kismaayana waxa la geenayaa madaxweyne lafta gareen iyo qoorta gareen raggiisa shaah lacaba raggiisaas la qaxweeya baa la geenayaa ninka la yiraahdo kadikaana waa la ignore gareynaya oo hadal iyo waxba la weydiin mayo wuxuu noqonayaa haddii alla ku rooyahay yaa hadlaa la markuu hadlo yaa hadlay warkii kiiba hadlay la ayis oo soo ka baxaya haddii alla ku rooyay saaxada siyaasadda marka taasi waxay tagaysaa waa markuu labada sano farmaajo helo haddeer shirka halkaa ku xaniban shirkii biri baan gelinaa markay dhaheen wuxuu yidhi arbacada shirka dabada dhacaya ka baarlamaanku haddii ay saxiixi waayaan shirka labada sano uu tagayaa igu dhuftuu leeyahay kuwaani faa'iido iyo caaqabo midna ma lehe markii lagu dhuftaa toos waxaa loo aadi doonaa meesha bu-aala toos loo aadi doonaa bu-aalatu Kismaayo Jubbaland kusoo faraxalo ninkii farmaajo ahaa niyow dadka ninkaas waa qabsaday wuxuu ila leeyahay siyaasadda uu isticmaalayo politika uu isticmaalayo oo bahal smart ah iyo qaabka uu soconayo iyo suu aamusan yahay iyo suu xiis u kala wato iyo sida baash caalamka uu sacbinayso iyo sida kataarka uu garaacayaan iyo sida haddii ay ku uu abkay muqaal dhan futay oo ugu dhuftay barida ugu dhuftay waxa ay muuqata madaxweynihii u horeeyay oo soo laabtay inuu noqonayaa ay muuqata ilaahay baa xukunka haya ilaahay baa xukunka baxsha ilaahay baa diyaar ku weesaama cid ka noqonaysa og laakiin aniga waxba ay muuqda waxaan leeyahay waa qubanahaygii waa galabtayo socdaan u jeedaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh